ololaha doorashooyinka Soomaaliland ayaa galay wajigii u dambeeyay xisbiga isbeddeldoonka wadani ayaa soo bandhigay wacdaro aan horay loo arag ku soo bandhigay deegaanada kala baydh qorila iyo karin sidoo kale maayarkii hore degmada Laascaanood Axmed Awdaahir Xaaji Axmed oo kamid ah saraakiisha sarsare ee xisbiga isbeddeldoonka wadani ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay dhammaan deegaanadaasi isagoo kala qayb galay shacabka deegaanadaasi ololaha doorashooyinka xisbiga isbeddeldoonka wadani oo maanta wareegiisii lixaad u lahaa shacabka deegaanadaasi ayaa sheegay inay codkooda siinayaan xisbiga isbeddeldoonka wadani sidoo kalena waxay soo bandhigeen ciyaaraha hidiyo dhaqanka ay caan ku yihiin dhammaan deegaanadaasi tagiyo fuday dagal kuma dhismo kaligi doobyaha talada ka duda daraja ma hele tagiyo fuday dagal kuma dhismo kaligi doobyaha talada ka duda daraja ma hele haliyay degamba duruufa shacbiga la dabaalan kare codkaaga ku dooro wadani codkaaga ku dooro wadani waqtigii iyo doorashadiina way soo dhawaatay kartideena iyo dadnimadeena iyo waajibkeena aan muujino xusbiga kaarkeena aan adkaysano xusbigaas aynu ugu ridaynaa miyaynu kaarkeena siisan kana malaayiin $12 war qof kasta kaarkiisa ku mintado warbixintu waxay ahayd waynu qaadanay waxaanu leenaga rabaa hadaynu nahay reer kala baydhow sidaynu wadan u taageeray inaynu hawsha inta ka hadhayna ku gabagabayno codkeena oo aynu wadani siino inagu waxaynu nahay xusbiga wadani ee uu hogaaminayo musharaxa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi oo ah nin muwaadina oo ah nin daacada oo aanu wax la ognahay oo ay khaatumada wax wada galeen iyo Cali Khaliif Axmed Awdaahir maayirkii hore gobolka Sool bayna ku soo dhaweynay sidiiran oo wada jira oo hambaliya oo kalgacal bayna ugu soo dhaweynay sim islaantiniga bayna ugu soo dhaweynay wuxuu hogaaminayaa xisbiga wadani ku soo dhawow baa leenahay magaaladaadii wadani taageero wax kale uma aynu imaan xusbiga wadani inaynu taageero inagoo reer karida baynu weyna ama dhulbahanta waxaynu u nimi inaynu xusbiga taageero waxaan ku taageernaa codkayga waxaan ka codsanayaa biliis waxaan ka codsanayaa codkiina aad ku taageertaan xusbiga wadani codkiina yaale waxaan aanu ka midaysanahay xusbiga wadani oo aanu taageeraynaa weyne waftida ballaanada noo timid ee sharafta leh waan soo dhaweynaynaa ee ka socota xusbiga wadani waan soo dhaweynaynaa gacmo furan waana raacsanna haliyay degamba duruufa shacbiga la dabaalan kare codkaaga ku dooro wadani codkaaga ku dooro wadani anuu go'aankayga waxaan ku qaatay markaan isbarbar dhigay in xisbiga wadani hadda danteenu ay ku jirto sida hadda muuqata xisbi waxa weeyaan waa dadka hoggaanka hadda u ah aynu garanayno dooranayna waxaynu ku dooranaynaa waa sida maanta wuxuu warkiisu u batay oo la go'aansaday war xisbiga wadani aan wax la qabanno dadka ninkii ku eegay ku qiimeeyay ku tixgeliya adna waa la qiimeeyaa waa la tixgeliya oo xisbiga aan wax la qabsano halkaas xaajada la dhigay kulmiye inoomaha iyo hadduu soo baxo wasiir inoomaha iyo annaga hadda ninka Cabdiraxmaan Cirre aanu wadani chairmanka ka aanu dhisayna uu noo cadeeyay inuu wasiir fuula oo waliba kuwa eedaa ina siin doono Maxamuud Aadan Askar Maxamuud Gurey Somali News TV deegaanka Qoriley gobolka Sool